الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم waxaan bilaabaynaa casharadeenii online-ka ahaa gaar ahaan maadada xisaabta markii ugu dambeysay halkii aan maraynay un baanu ka sii anba qaadaynaa markii ugu dambeysay waxaan maraynay chapterkeennii statistics weliba waxaan madaynay qodobka ugu dambeeya statisticska marka in ugu dambaysiinayno qodobka ugu dambeeya waxaa la yidhahdaa cumulative frequency diagram ama cumulative frequency curve magac kalena uu leeyahay waxa la yiraahdaa ogif curve amaba s curve saddexdaas magac buu leeyahay laakiin waxa aad caan u yahay cumulative frequency diagram ama cumulative frequency curve amaba ogif curve haddaba si aan u sharaxno ogif curve waxaan u baahanahay inaan ogaano casharkii kan ka horreeyay inuu bixinay cumulative frequency si baan u xisaabin jirnay cumulative frequency saan u xisaabin jirnay kaliya waxay ahayd inaan frequency helno oo frequency haddii aan helno waxa inoo fududaa inaan cumulative frequency helno oo wax kale ma aha in cumulative frequency oo xun buu ahaa frequency oo la isku daray cumulative frequency waxaan u bixinay additive frequency marka frequency-du ma isu geegeynaynin marka haddaba markaan doonaynay in cumulative frequency diagram sawirno before drawing a cumulative frequency diagram we need to work out the cumulative frequencies first marka koowaad waxaan u baahanahay cumulative frequency diagram saan u sawirno in cumulative frequency ga raadinaan u baahanay marka hore data la siin doonaa data ka kooban the data on the marks on the frequency anoo raadin doonaa cumulative frequency ga raadin doonaa marka cumulative frequency ga raadiyaa waxay sabab u noqonaysaa in graafkii cumulative frequency ga diagram ka aan sawiro haddaba marka aad cumulative frequency ga raadisa maxaa dhacaya then the points are plotted on the upper class boundary in horizontal x-axis with corresponding value of cumulative frequency in vertical axis macnaheedu waxa weeyaan marka hore waxaan raadinaa cumulative frequency markaan raadino waxaan ogaanaynaa datada inay groupy data weeyaan badanaa cumulative frequency diagram waxaa lagu muujiyaa groupy data ka kooban classes iyo frequencies ama groups iyo frequencies haddaba cumulative frequency markaan raadino waxa dhacaya اللهم صل على محمد ماشي waxa ka soo baxay cumulative frequency iyo groupy data marka groupy data-daada waxaan groupy data-deeda taasare ayaan qaadanaya la yiraahdo upper class boundaries ama upper class kan waa lower class kan upper class ka iyo cumulative frequency gaasan isticmaalaya san graafka u sawiro la yiraahdo cumulative frequency curve waa kan kule the points are plotted on the upper class boundary in horizontal x-axis graph baan sawiri doonaa cumulative frequency diagram kuwaka waa x-axis iyo wuxuu ka kooban yahay y-axis x-axis-ka waxaan ku sawirayaa upper class boundaries baan ku sawiray y-axis-kana waxaan ku sawirayaa cumulative frequency kaa waan iska daynaya kana waxaan ku sameynayaa y-axis waxaan ku sameynayaa cumulative frequency kabacdi points baan isku xidhayaa ka dhex leh lower class upper class boundary in horizontal x-axis and the vertical y-axis oo ah allahumma salli ala muhammad oo ah cumulative frequency kan labadaasan isticmaalaya si aan u sawiro graafkii loo yiraahdo cumulative frequency taas oo ku leeyahay upper class boundary waxaad u isticmaashaa horizontal x-axis halka corresponding value of cumulative frequency ga aad u isticmaalayso vertical axis halkaasaan maraya sideen markaa u isticmaalaya waxaan qaadanayaa upper class boundary-gan iyo cumulative frequency mid kasta ka upper class boundary-ga iyo tree-ga cumulative frequency la sawiray waxaan leeyahay marks-ka 10 iyo cumulative frequency-ga 3 halkaas oo kale ay taalaan 3 shan hadii ay tahay 3 agaas soo qaaday upper class boundary-ga 20 iyo 8 halkaas oo kale waxa ku xiga upper class boundary-ga 30 iyo 13 suppose in inta tahay estimation oo laga ogoli hadii aan la sameyn interval yar la sameyn upper class boundary-ga 40 iyo 22 kaasoo kale taala konton iyo 30 kaas tahay for example 60 iyo 48 kontanka in yar hoostiisa 70 iyo 62
toddobaatan iyo laba iyo lixdan toddobaatan upper class boundary iyo cumulative frequency laba iyo lixdan in yar inuu halkaa alaamsar cala maxamed halkaasoo kale ku beegan yahay toddobaatan iyo laba iyo lixdan waka haye siddeetan iyo toddobaatan sagaashan iyo lix iyo toddobaatan sagaashan lix iyo toddobaatan waa boqol iyo siddeetan sagaashan iyo lix iyo toddobaatan boqol iyo siddeetan halkaynu ku beegay maa halkaa maxaa dhacay marka points baan sawiray pointskaa waxaan ka sawiray upper class boundary-ga iyo cumulative frequency halkay ku kulmaan baan dhibic dhigta kanna dhibicahaas oo dhan waxay u taagan yihiin upper class boundary-ga qiimihiisii iyo cumulative frequency-gii halkaasaan dhibicaha dhigay dhibicahaasaan isku xidhaya marka garaafka inaan u sawirnay ka soo qaad dhibcihii haddaan isku xidho garaafka noocaas ay soo baxay ee ka yimi upper class boundary-ga oo markuska ah iyo cumulative frequency-gii on raadiyey cumulative frequency sidaan u raadiyey marka hore kamaan soo qaatay labadan baan isu geeyey 8 13 22 23 23 loo geeyey 48 22 70 76 80 oo ka u dambeeya wuxuu la mid noqonayaa total for all observations and total frequencies the mark is obtained by 80 students in examination as shown below was data ka arday weeyaan ka resultigna kaas lagu muuji cumulative frequency baan raadiyay labadan baan isticmaalay saan graafka u sawiro graafka waxa loo yaqaanaa cumulative frequency curve ama waxa la yiraahdaa ogif curve ama waxa la yiraahdaa s curve oo de s buu eegi okay maxaa ka xiga waxa ku xiga waxa weeyaan sidee baa su'aalo la iga weydiin karaa graafkayga maxaa macluumaad ah oo la xiriira graafkaygan ayaa la weydiin karaa waxa ugu horeeya ee la weydiin karaa waxa weeyaan waxa la oranayaa horta inta data noocan oo kale la soo qoro ayaa la oranayaa plot a cumulative frequency curve sawir taasaan sawirayaate cumulative frequency raadi labada isticmaal graafka waa ka sawiray pointska labadaas ka kulmaan isku xidh graafka s curve ka baa ku soo baxay waxa ku xiga estimate the median the interquartile range maadaama oo intervalkan aanan samayn 0 ilaa 10 digit oo dhaxeeya estimationka waa laga ogoliyay marka waxa la leeyahay estimate the median halkan ayaan isoo eegnaa marka graafkaygan macluumaad dheeraad aan ka bixinaya macluumaadkan ka bixinaya waxa weeyaan graafkaygu halkaa sare u gaadhay waxay ka dhigan tahay 100% markasta graafkayga waxaan ku ilaalinayaa halka curve-kayga ku istaagay haddii kan la iska wado markiskan sii socdo danka mali halku graafkaygaasi ku istaago baan eeganayaa way 80kaasi waxa u dhigantay 100% waa halkii ugu sareysay graafkaygu oo yaal halka 100% ka baan ka dhigayaa position baan ka dhigayaa 100% percentile iyo percent waa isku mid macna percentile 100% buu taagay hay halka markan maray waxaan sameeynayaa kama laba u qaybinaya 8 ka laba u qaybiyo 40 okay 40 kaasi wuxuu iga dhigan yahay 50% ilaa kan baa 100% ahaa aduu kaasi 100% ahaa kan markan laba loo qaybiyo 50 buu noqonayaa kanna 40 buu ku beegnaanayaa qiimo ahaan way kan wuxuu dhigan yahay 50% kan hadda ku dhaw 100% halkaan waa kugu soo qoray 100% halkan waa 50% de 100 qayb waa 50 80kii 100 ku taagna laba qayb 40 marka aad ilaa 50% wuxuu ku beegay 40 buu ku beegay way halkaasaan maraya the next 40 kama laba qaybinaya waa 20 50 kana laba qayb 25% oo dhigan 25% halkii percent kuma percentile oranay marka aan leeyahay 20 kaasina wuxuu dhigan yahay 25% way ka bacdi waxaan sameynayaa kontonkan kaasaan 100 kaasaan laba qaybiyo 50 baa soo baxay kana labana qaybiyo 5 labadan baan isu geynay 5 oo dhigan 40 bay kala taagin labadan isu geey waa 60 kaas wuxuu noqonayaa labadan la isu geeyay 75% oo dhigan 75% way
halka maxaa ka soo baxay marka waxa ka soo baxaya 25 percentile 50 percentile 75 percentile 25 percentile 50 percentile 70 percentile percentile mid waa 20 midna waa 40 midna waa 60 kaasan marka soo gaay 40 saddexdan baan ugu muhiimsan 20 iyo 40 iyo 60 kaas baan u jeedaa 80 ka loo qaybiyay kaasaan helay 40 ka 40 ka loo qaybiyay 20 baan helay labadan baan isu geeyay 35 baan helay haddaad graafkayga u fiirsataan inta imka aan sameeyay waxa u qaybisay 4 qaybood bay u qaybisay datadayda waa maxay 20 40 50 ama baan idhaahdo 1 2 3 4 intaas blastis waxa meersa ka soo baxay waxa loo yaqaan quartiles marka datadayda waxaan u qaybiyay 4 qaybood 1 2 3 idhaahdo 1 2 3 4 1 2 3 4 kan waa 40 50 percentile 25 percentile Allahumma salli ala Muhammad waxa marka halkaan ugu qorane waan iska diin karnaa waxa halkan ku qoran kan 100 percentile kan marka labo qayb 40 50 percentile kan laba markan u qaybiyay 25 percentile labada hadda sugay 75 percentile marka 1 2 3 4 ama 1 2 3 4 graafkii waxa qayb 4 qaybood oo meesha ka soo baxay hay hadaba 4 qaybood meesha wax ka soo baxay loo yaqaan quartiles waxa ugu muhiimsan graafkii ay ka jawaabayaan waxa weeyaan waa quartiles weeyaan iyo percentiles waliba gaar ahaan quartiles hadaba marka 80 ka laba u qaybisay ee tiri waa 40 oo u dhigan 50 percentile waxa loo yaqaan the median ama middle quartile Q2 means middle quartile adina middle quartile ama median ka soo saar kan baan laba u qaybin 40 waan raaci qiimaha ka ku beegan ma sheegi doona qiimahan ma sheegiyo dada median soo saar ama middle quartile kaasun laba u qaybin maayo waan raacaya Allahumma salli ala Muhammad qiimaha halkan ba markiska de wala frequency uu waa isu geeyay markiskan ba macnaalade ka markiskan sheegaya median ma gacan sameynaya magaasan laba u qaybinaya 40 gaasan raacaya qiimaha ku beegan ma sheegi waxa soo baxay median kaas 40 ka baan laba u qaybinaya waxa soo baxay 20 kaas raacaya isagana waxa loo yaqaan lower quartile the value at the 25 percentile is called lower quartile imaana waxa loo yaqaan lower quartile ba loo yaqaan way labadan haddaan isu geeyo 60 waxa loo yaqaan upper quartile meeshii marka maxaa ka soo baxay quartileski lower quartile middle quartile ya upper quartile saddexdaas ugu muhiimsan lower quartile median upper quartile inta hadda taqaano percentile ka xuquuq ma baahnid marka oo maxaa median ka maxaa sameynaya kama laba qaybinaya qiimaha ku beega ma sheegi lower quartile kama laba qaybinaya oo raacaya qiimaha ba sheegi labadan baan isu geynaya 60 oo raacaya qiimaha ba sheegi marka halka hadda qodobada ogaanay kow lower quartile oo loo yaqaano Allahumma salli ala Muhammad Q1 iyo middle quartile ama median oo loo yaqaano Q2 iyo upper quartile oo yana loo yaqaano Q3 hay saddexda hadaan kala ogaaday wax weyn baan ogaaday waxa kaliya ii hadhay waxa weyn inaan ogaado waxa la dhahay interquartile range iyaduna waa labadan waa Q3 baan ka jarayaa Q1 Q3 upper quartile means lower quartile gives you interquartile range hadaba su'aalaheena video waxay wada median iyo interquartile range sideen u raadinaya median sideen u raadinaya baan ku kan baan laba u qaybinaya 40 iyo median ki raac wax ku beegan qiimaha marka aan ka eego 55 median ki waa 55 max ilaa 50 iyo 60 dhexdeeda hadan lower quartile ba leeyahay Soomaa ama interquartile range san raadiyo waa inaan helaa middle quartile ma inaan helaa upper quartile iyo lower quartile iyana sanu helaya lower quartile kama laba u qaybinay 20 raac ku beegan qiimahan 40 mu gaarin laakiin uu dhowi 73.5 ka soo qaad 75.5 max lower quartile markasta qiimaha ma sheegiyo waan raacaya xagga baan ka eegay lower quartile waa marka median ka laba loo qaybiyo raac
lower quartile-kaygana wuxuu la mid yahay 37.5 marks waxa iigu xiga upper quartile waxaa isu geenayaa lower quartile-ka iyo median-ka 24 u gee 60 laakiin ka ha qaadan raac xaggan eeg ugu dhow yahay 70-ka inuu dhow yahay 9 estimation laga ogoliyay 68 marks meesha maxaa raadiyay median lower quartile upper quartile maxay haray saddexdii wada Q1 Q2 tan waa Q2 Q1 Q3 interquartile range maxaa lagu helaa upper quartile minus lower quartile oo labadii ma soo saartay upper quartile ka waa kan lower quartile ka waa kan labadan haddaan kala jaro waxay soo baxay interquartile range Q3 60 Q1 37.5 30.5 marks waa IQR halka maxaan ka fahmay marka waxaan ogaaday in graafkayga horta la sawir la igu oran karo laga jawaabi karo su'aalaha lower quartile middle quartile iyo alaamsa upper quartile iyo interquartile range inta hadaan aqaano aqoon badan ayaan u leeyahay alaamsa wax la yaqaano cumulative frequency curve-ka ama cumulative frequency diagram marka qaar formula la isticmaalaa in yar gaar ah Q1 marka qaar waxa lagu oran karaa waa 1/4 n + 1 th oo intaasna waxa weeyaan waa last cumulative frequency ka intan baa soo bixi doonta Q2 waxa weeyaan waa 2 divided by 4 n + 1 th position ku isu saaraya marka Q3 waxa weeyaan 3/4 n + 1 th ka hadda hesho cumulative frequency-ga u qaybso kaasi ku beegan bad raaci doontaa qiimuhu ku beegan yahay qiimo waxa ku soo bixin tusaan ahaan 20 ama 20 bad raaci 40 ama 40 bad raaci 60 raaci doontaa halka marka waxa iigu dhan cumulative frequency diagram-ka halkaana waxa ku dhamaanaya chapter-keeni looranay statistics qaybtiisii hore ee statistics-ka waxaan bilaabi doonaa xisada ku xigta probability aad mahadsantiin thank you very much inshallah see you next time